لا سداد بقول أيو صاهلة سداد بقول بالودي بمدفر الدين ولا يدي بالأربيل تتارك كهرتك وسداد بقولاني مدفر الدين وحقاقي سعيد أنا أبو صاك حيستي أربيل قال كذي ميري هدي ويمي وراركي بإسكاري يعني المسلمين تي صاب حضي أيوة جنكس خان الله شقي عيد مديسي الخلافة العباسية ومقعاد وين أو شام بقول يديرات سندوت شري هذا وحي نشوقنا محي لح بقول يسداد يتبكي هجرية دانا دي كان ورمية وحانا بلاب من لح بقول يا بي صدن كي هجرية دا يصاب بلاب من يعني بقول يدور يصدن كي هجرية دا إلا لح بقول يدور يتبكي شن قرني الدولة سوشرتي ويان والدولة الدنيا دا دعلة دا قاردي والدولة أقوانت الدنيا دا هقامين شرتي والدولة الأولى بيكتي waxay huwantay shaadh weyn oo dunidu ka cabsato laakiin ciidan 800 ay wadataa waxa ku xisaabtamay Jenkins Khan markaa in 800 iyo waxaan la sheegayaa khudca inay tahay taktiik military inay tahay oo intan yarintay hadhow loo baqa carari doono dee fakha ciidankii weynaa ku dhici doono dabeetana wuxuu go'aansaday إنه حرب استنزاف قاله إنه مواجهة قلين الخلافة بقى هذا التاجن ده أول دولة الخوارزمية بهي الآن والخلافة العباسية ودولة دي مسلمة ورد من هو استجيي أرنكو صفة ضد واحد لو قالي كرماها سيدا أوجد تتركي واحد قوان صدين حرب استنزاف كله فاكر دقاقي يا باب يا كلب ميل لقلا يا بقى قلين يا باب كائن لقلا لكن أنا عيدا ككن لواجهن إيوه إنه صمايا محيا أحلاف يا اتفاقيات يا هشيسيو يا قاشامبور دوني دا إنه الله سو هشيو قاشامبور صوصا ما يستو سخلافة دا مركا لوغو دا الديولة كدب قولة خلافة دا إلهي با مركا كان بدباديو دي باللوغا نغضي همدان يا حقا سو كعي همدان بو عكتا سي مريي أردو المقالة الله يراهدو عكتا سي مريي وحي ودن كاسي لاين كربو سي لايي إلهي وكا قاري مقالة دا تبريز الله يراهدو تبريز وهراء يمادين وحي يمادين وقتي قبوبة وبرف كدعيو دبيتنا ننكي بقركي مركا هيستينه وحسيه وحوغا حولا يدر يلعغيو بلن بولا قالين تودي بقاتين وكو يسكتغي waxa haystay Ozabik ibn al-Balhawan ninkan ku tilmaamayno nin khabriye cabaabay ku sheegaan taariikhiyahanadu الآن ووقتي jawigu fiican yahay dee ballankana awalba muu aqoonin waxay isku dayeen markaa haatatan inay weerar rasmi ah magaalada ku qaadaan laakiin magaaladiina way isbedeshay intii waxa qabsaday Shamsuddin al-Taghra'i nin la oran jiray oo taariikhyahanadu yiraahdaan wuxuu ahaa nin adduunkiisa iyo aakhiradiisaba fahmaya ninka kani markuu meesha qabsaday magaaladiisii uu diyaar garoobay ciidamuu samaystay waa diyaar garoobay inkastoo tataarku ciidan aad u badan iyo dawladda laga wada baqaya yihiin laakiin wuxuu ku tala galay dee kullayba waa dhimanaysaa adoo sii jeedaha dhiman meesha nimankani dee cid badayn maayaan marka haddaad raacdana uu ku dili haddaad dagaalantana uu ku dili had walba waa dhimane inuu isku dayo inuu isdifaaco ayuu ku tala galay jihaad buu iclaansaday dadkii baa la xamaase geliyay culamadii baa dhawaaqday magaalada qalcadaheedii iyo aswaartii darbiyadii ku waraagsanaa iyo wixii baa la hagaajiyay dhufaysyadii iyo godadkaa la qotay waa loo diyaar garoobay tataarkii way se soo taageen waxay maqleen meeshan in jihaad ka iclaansan yahay kadib waxay dhahaan raalli ahaada iska sii noolaada waa ka tallaabeen may u jeesanin waxay u kaceen magaalo kale oo ka mid ah magaalooyinkaasi meeshan ku yaalay belqaan la yidhaahdo waa Iran magaalo ku taalla iyana ramadaan 618 bay soo galeen iyadana cagtay mariyeen ibn al-Athir wuxuu leeyahay كانوا يشقون بطون الحبالة ويقتلون الأجنة وكانوا يرتكبون الفاحشة مع النساء ثم يقتلونهم wuxuu tilmaamayaa magaaladan markay qabteen ilmaha uurka ku jira xataa way dileen buu leeyahay
tabriis oo jihaatamaysa markay arkeen soo dhaafeen tan yar baa la iskaga cadha burburay ilmaha uurka ku jira xataa waa dileen buu yidhi kuwa uur kale uurkay ka soo rideen ajinnada waa laayeen dumarka raggooda hortooda ay ku faraxumeeyeen kadibna waa laayeen xoolihii waa boobeen farsamadii ay yaqaaneen waa soo socdeen ganje magaalo la yidhaahda yimaadeen reer ganje laakiin iyagu sidii reer tabriis bay isdiyaariyeen jihaadkay ku tala galeen tataarkii waxay maqleen halkana jihaad baa ka iclaansan sii nabad ahaaday yidhahdeen xagga kale ka dhaafeen waa ka tallaabeen wuxuu tegey markaa xagga sare ayay u kaceen waddannadan ruushiya dhulkan muslimiinta u iminka weli gumaysto dakhistaan bay galeen cagtay mariyeen shiishaan bay galeen cagtay mariyeen ruushiyay bilaabeen inay dagaalka ku sii qaadaan webigan foolga la yidhaahdo iyo agagaarkiisa oo atractu marka ay degi jirtay galeen foolgayana cagta mariyeen dadkii degganaa sanadkaa ku xigay 619 waxay gacanta ku dhigeen sanadkaasi markuu soo galay oo tataarku marka kan ay gacantooda ku jira dawla alkhawarzimiya dhammaantood kazakhstan kirghistan tajikistan uzbekistan turkmanistan bakistan oo laga reebo gobolka yar ee karmaan la yidhaahdo afghanistan iiraan oo laga reebo xuduudda yar ee galbeed oo ay taa'if al-ismaaciiliya degantay azerbaijan armeniya georgia iyo ruushiya galbeedkeeda intaasay marayaan intaasay hadda gacanta ku hayaan 620 markay taariikhdu maraysay si ay u fahamtaan muslimiintani maxay u daateen raghib as-sarjani fi kitaabi afar xaadiثu sheegaya uu leeyahay afartan hadday ila fahamtaan dadkani waxay u burburayeen waa garanaysaan buu yidhi xaadiثada koowaad wuxuu leeyahay tataarku ruushiyay galeen dagaaladii ruushiya ay ku wadeen markay meel dhexe marayaan daa'ifo bulgaariyiin la yidhaahdo maaha bulgaarkan waa bulgaariyiin ruushiyana markay halkaa marayeen ayay qabaa'ilka bulgaariyiintu soo jebiyeen tataarkii markay soo jebiyeen jab aad u fool xunnaa ku dhacay waa baxru ghaswiin galbeedkeeda baa la yidhaahdaa dabeetana jabkaasi wuxuu la soo dhaafay in shiishaan iyo dakhistaan iyo azerbaijan iyo waxaasoo dhammi gacantooda ay ka soo baxaan nimankii tataarka la odhan jiray ruushiya qayb ka mida baa jab xooggan u geysatay wuxuu keenay markaa dhulkii ay qabsadeen iyo wixii oo dhammi inay burburaan oo xooggii tataarku uu gilgilmo laakiin muslimiintu marka kan maxay sameeyeen markii qolo kale u soo jebisay iyagu maxay yeeleen kow waxay dhahdaan armeniya muslimiintii boqorradii joogi jiray boqor ka mid ah ayaa ciidan diyaariyey duulimaad isagu wuxuu ku qaaday bay yidhaahdeen kurjigu waa georgia doctor raghib wuxuu leeyahay waxaan ku macnayn karaa waxa kani alxawal الsiyaasi buu yidhi xawalku waxa weeyaan dadkan indhuhu xanuunku ku dhacee markaa indhuhu ay iska soo hor jeestaan yani xagga siyaasadda buu leeyahay waxbaba arki maayaan waayo muslim qaybtiisii galbeed oo dhan bari oo dhan tataar baa haysta dawladdii tataarkana qayb ka midaa la soo jebiyey way jilicsan tahay halkuu tataarka kaga duuli lahaa ayuu qolo kristan oo kale oo meel iska joogto waddan kale oo weliba iyaguna tataarka dhibtiisa dhadhamiyo uu tataarku ay hore georgia horey u galeen oo mushkiladdu qabsatay halkuu ama kuwan xilfi wadaag uu iska ilaalinayo la geli lahaa ama at least heshiisuu iskala geli lahaa iyaga dhaafi lahaa uu focuska saari lahaa dawladda weyn ay ishayaan ayuu intuu tataarka ka jeestu meel kale isku taagay dagaallo badan oo caalamulislaam ka socdaa noocaasay u egyihin waxa muhimkaaba arki maayo wax yaroo kalunbaaba u muuqda meel yaroo kalunbay dadkani ku wareersan yihiin oo dagaalkoodi iyo qorigoodi iyo waxooda dhan usoo jira waa xawal siyaasiya waa dadka oo aan bislaanin aragtidooda siyaasiga aanay bislayn aan kala garanaynin maxaa see loo kala horraysiiyaa qofka khabiirka ahi ahdaaftiisu waa inay taabuur ku jirtaa waa inay kala dambeeyaan hadafkaaga ugu dambeeya ka ugu horreeya haddaad kala garan weydo waa mushkilad ninka kani wuxuu hoos imanayay boqorkii la odhan jiray al-ashraf ibnu muusa alcaadil ee jasiirada ka telinaya waqooyiga ciraaq ka telinaya buu hoos imanayay dabeetana duulimaad xaggaasuu u sii qaaday
idan waa xikmad darro caskariya waa ru'yo siyaasi oo qaldan labadii kooxood waa isku madheen kiristanka iyo muslimka ahaa markii naftu iskaga baxdayna heshiis baa la wada galay waana istaynaa waa goorma labaduba tataarka iska dhicin kari lahaayeen laakiin markay labadiiba naftu iskaga baxday ayay heshiis wada galeen kaasi waa dhacdada koowaad uu tilmaamayo wuxuu leeyahay dadkani say u fakerayaan baan rabaa inay la garataan dhacdada labaad uu tilmaamaya waxa weeyaan tataarku markii ay jabeen gobollada eeraan gudaheeda waxaa ka soo baxay nin cusub oo odaygii hore boqorka meesha ka ahaan jiray carruurtiisii ka mid ah jalaaludiinkii maaha waa nin khiyaasudiin la yidhaahdo oo jalaaludiinka indiya u tallaabay ay walaalayiin kaasaa wuxuu qabsaday madiinatu ray iyo isbahaan iyo meelahaasi wuxuu qabsaday koonfurta iyo galbeedka eeraan marka laga reebo khuraasaantii sare waa dawlad cusub oo samaysantay oo laakiin inanuu dhalay odaygii moxamed alkhawaarzimi uu hogaaminayo laakiin waa dawlad at least tataarka iyo khilaaf alcabaasiya dhexdooda ku jirta siduu u fakeray annaasir lidiin ilaahigii baqdaad haystay khaliifkii cabaasigu khawaarzimiinta col bay ahaayeen wuxuu yidhi wallahi waa kuwa mar labaad soo noqday khawaarzimiintii halkuu ka fakeri lahaa tataarku 800 inuu helay qaar kaaga gudban baa alla keenay halkuu ka odhan lahaa ayuu wuxuu ka fakerayaa kooxdan xoogaysato oo dawladda yara cusub ee samaysatay hadday soo xoogaysato inay khilaafadiisi khatar ku tahay aragti istaraatiijiya marnaba kuma fakerin wuxuu bilaabay markaa dawladdaa yara cusub ee muslimka ee samaysanaysa siduu u khalkhalgelin lahaa dabeetana qoraal wuxuu la sameeyey khiyaasudiinka nin u abtiya oo la yidhaha iqan taa'isi waa abtigii ruma wuxuu abti u yahay kan dawladda samaystay oo nin siyaasi oo hunguri siyaasadeed yarahayaabuu xidhiidh la sameeyey uu leeyahy meesha khalkhali ninka aan wada inqilaabno adaan rabaa inaad dawladda qabsato taageerana waan ku siinayaa meeshaasaad u khalkhalinayso khalkhali kani oo markii horeba hunguri siyaasi hayay laakiin dee yaro cabsanayay oo ninkan daba socday ayaa imka ilan khilaafadii baa usul dhabaalaysay ee wuxuu isku dayey marka inuu isna ciidamo urursado wax samaysto oo waa kano markii dambena ciidan baabuu samaystay cisyaan buu sameeyey isagii baaba muslimiintii ku bilaabay weerar oo dhulgooyo iyo qaaticu ariiqnimo iyo waxbuu bilaabay iyo muslimka boobka ila dawladdu raba inuu khalkhalgeliye waa nimankii tataarku ku habsaday ee imka raashiya waxoogaa alla ka keenay ay tataarka jabiyeen halka iyagu is urursan lahaayeenee tataarka la ysku wada dari lahaa ilaa iyo mongooliya lagaga celin lahaa ayaa waxaa markanba bilaabmay in iyagu is riixriixaan oo maxay dawladnimada kiina wuu ogaaday khiyaasudiinkiina ciidan buu samaystay waa la isu baxay labadii kooxood baa isku jabay kii khilaafadu taageeraysay baa la jabiyey iqaan taa'isigii laakiin waa goorma waa goor cadad tiro badan oo muslimiini dhintay kaa ciidankiisa baaqigii ka hadhayna adarabijaan bay u baxsadeen yacnii waxaan uga jeedaa tusaalahan uu soo qaadanayo inuu caddeeyo muslimiintu inay iyagu isu muuqdaane ciddan haysata iyo gaalkan kusoo duuliya waxanba inaanay arkaynin boqor yaroo waliba inuu isleeyahy kan kugu xiga nafta ka hor qaada ama isagu ha kaa hor dhinto ama magaalo ka qabsa ama riix xaalada saddexaad uu tilmaamaya waxa weeyaan waa xaaditha ibnulahirba uu odhanayo xaadithatun ghariiba lam yuujad miluhaa buu yidhi ibnulahir baa wuxuu leeyahy waa dhacdo ghariiba oo aan iyadoo kale la arag dhacdadani maxay sheegaysaa waxay sheegaysaa qoladii kurjiyiinta ahayd alkurj georgia boqortooyadoodii baa gabadhi qabsatay kristani gabadhii boqortooyada qabsatay ayaa dabacday inay guursato dabeetana georgia iyo agagaarkeedii waxay ka weyday cid abnaa'ilmuluuka ama cid ay aragtay inay u cuntamaan oo ay guursato dabeetana way diiday waxaa maqlay boqorkii aan ka soo warramayey dawla salaajiqa anadooliyiinta anadol waa turkigii qadiimka ahaa marka laga reebo istanbul iyo xaggan byzantiyiintu haysatay anadol dawla salaajiqa baa ka taagnayd salaajiqada waa dawlo islaamiya waxaa markaa madax ka ah muqiisudiin